kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka Sacad TV qodobada ku daawad doontaan waxa kamid ah olole cusub oo ka dhan ah doorashada Galmudug ay ka wada dowladda Soomaaliya oo ka bilowday magaalada Gaalkacyo xaaf oo magacaabay gudi doorasho aad loo taageeray iyo xaaladii Galmudug oo wada kale u jihaysatay liiska xildhibaanada haray ee maamulka Galmudug oo maanta lagu dhawaaqayo Afrika oo war ka soo saartay duqeyn ay ku dishay maleeshiyad badan oo ka tirsan Shabaab iyo Shabaab oo boosaaso ku dilay sargaal sare oo kamid ah ciidanka maamulka Puntland haddii aan ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino taariikhdu waxa ay tahay 4 bisha koobaad January sanadka cusub 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale oo ka dheeraad ah ku soo dhawaada daawadayaal aan ku bilowna xaaladda Galmudug aad u qasan madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa magacaabay gudi doorasho cusub maalin kadib markii uu ka soo horjeestay dowladda federaalka qoraal uu soo saaray Xaaf ayuu ku magacaabay gudigan oo ka kooban 11 xubnood waxaana uu ku amray inay soo xaroodaan ugu dambeyn 10 bishan aan ku guda jirnay Janaayo xaaf ayaa sidoo kale gudiga faray in gudoomiye iyo ku-xigeen doortaan ugu dambeyn 12 bisha aan ku guda jirnay Janaayo magacaabistan ayaa timid maalin kadib markii xaaf uu sheegay isagoo tixgelinaya dastuurka dalka iyo kan u gaarka ah dowlad goboleedka Galmudug uu dib ula laabtay awoodii hore uu wareejiyay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye Qarafaan sidoo kale xaaf ayaa amray guliyada wasiirada iyo dhammaan howlwadeenada kale ee maamulka inay ka shaqo bilaabaan xafiisyadooda ugu dambeyn 15 bisha Janaayo 2020 gudiga maamul dhisidda Galmudug ayaa shalay aqbalay 20 xildhibaan ay soo gudbisay ururka Ahlus Sunna taa oo hadda muuqatay aad uga carooday madaxweyne xaaf taasoo u muuqatay shalay in ugu dambeyn xalin doonta khilaafkii ka dhaxeeyay dowladda iyo Ahlus Sunna balse talaabooyinka uu qaaday madaxweyne xaaf ayaa mugdi cusub gelin kara xaaladda dowlad goboleedka Galmudug oo muddooyinkii u dambeeyay iskeed u cakirneed magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka bilowday saacadihii aan soo dhaafnay olole xoogan oo liddi ku ah hanaanka geedi socodka doorashooyinka baarlamaanka iyo midka madaxtooyada Galmudug ee ka socda magaalada Dhuusamareeb iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyr magaalada Dhuusamareeb ka wado kulamo lagu dardargelinayo dhismaha maamulka cusub ayaa waxaa si lama filaan ahayd u mucaaraday madaxweynaha waqtigiisa sii dhamaanaya Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha oo khamiistii gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug deegaan ahaan uu ka soo jeedo ayaa bayaan oo habeen hore soo saaray waxa uu ku sheegay inuu dib u gala soo laabtay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya wakiilashadii uu wakiishay inay soo dhisto maamulka cusub ee Galmudug madaxweynaha Galmudug oo muddooyinkii ugu dambeysay oo heshiis isfahan ah kala dhaxeeyay dowladda federaalka ayaa u muuqda mid gebi ahaanba salugsan dhabaha ay gudiga farsamada u marayaan dhismaha Galmudug loo dhan yahay maadaama inta badan beelaha dega Galmudug ay ka cabanayaan gudigan madaxweynaha ayaa golaha wasiirada Galmudug iyo howlwadeenada ku wargeliyay inay dib ugu howlgalaan xarumooda laga bilaabo 15 bisha aan ku guda jirnay Janaayo madaxweynaha ayaa ugu baaqay odayaasha dhaqanka ee beelaha Galmudug iyo saamiliyada siyaasadda inay ka soo qayb galaan 25 bisha ku guda jirno shir looga hadlayo ayaha Galmudug iyo sidii tala mideysan loogu dhisi lahaa Galmudug badqabta sidoo kale madaxweyne xaaf ayaa magaalada Gaalkacyo ka wada kulamo oo dadka kaga tashigelinayo shirka uu doonayo inuu ku qabsoomo magaalada Gaalkacyo toddobaadyada soo socda dowladda federaalka oo garabsan in hadalka madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu caqabad ku noqon karo dardargelinta dhismaha Galmudug loo dhan yahay ayaa wax war ah wali ka soo saarin dhaqdhaqaaqa uu ka bilaabay magaalada Gaalkacyo deegaan ahaan uu ka soo jeedo inkastoo ay soo baxayaan warar sheegay in dowladdu ay qorsheynayso sidii ay u fashilin lahayd shirka uu ku baaqay Axmed Ducaale Geelle Xaaf warar kale oo aan la xaqiijin waxay sheegayaan in dowladdu
ay wada hadalla qarsoodi ah la bilowday madaxweynaha galmudug. dhanka kale dadka reer galmudug ayaa aad u hadalhaya hadalka ka soo yeeray madaxweyne xaaf iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee hormuudka ka yahay kana socda xarunta gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo. doorashada galmudug ayaa waxaa hareeyay khilaaf xooggan oo aad arki karto sida uu dib u dhac ugu keeni karo dadaalada uu ujeedkoodu yahay in lagu soo dhiso maamul cusub oo dadka reer galmudug ay leeyihiin. si kastaba ha ahaatee khilaaf ka hareeyay doorashada galmudug ayaa noqday mid soo ifbaxa mar kasta oo mid laga gudbo. hadalka ka soo yeeray madaxweynaha galmudug ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor la xaliyay khilaaf u dhaxeeyay ahlu sunno iyo dowladda oo sababay in ra'iisul wasaare Ceyr muqdisho uu ka ambabaxo si uu xalliyo khilaaf ka dhashay 20 xildhibaan oo ahlu sunno laga siiyay galmudug ayna soo magacaabeen kadib markii inta badan beelaha galmudug ay ka biyo diideen xildhibaanada ay soo saareen ururka ahlu sunna. dhawaanahan galmudug dhismaheeda waxaa isku haystay dowladda federaalka iyo ahlu sunna, balse haatan waxaa ku soo biiray madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf dhawaanahanna wada hadal uu kula jiray dowladda Soomaaliya. sidoo kale madaxweyne Xaaf ayaa dhowr mar sidaan oo kale warqado isbarbar ordaya soo saaray kadib waxaana la sheegay in wada hadal ay la gashay dowladda ay ku qancisay Xaaf inuu warqadaha ka noqdo, balse lama oga in markaan uu Xaaf yeeli doono arintaayin kale. markaana aan fiirina magaalada Dhuusamareeb xildhibaanada haray ee maamulka galmudug ee 69 ah ayaa la sheegay in lagu dhawaaqayo saacadaha soo socda. guddiga farsamada ee maamul dhisida galmudug ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo liiska 69 xildhibaan ee ka haray baarlamaanka maamulkaasi. guddiga ayaa horey u shaaciyay liiska 20 xildhibaan ee ahlu sunna wal jameeca laga siiyay baarlamaanka cusub ee galmudug kadib markii laga heshiiyay tabashada beelaha qaar. haddii lagu dhawaaqo xildhibaanada haray ayaa waxay gudageli doonaan howlaha doorashada gaar ahaan tan guddoonka iyo midda madaxweynaha intaba. sidoo kale arrimahan waxay ku soo aadayaan iyadoo madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu ka hor yimid dadaalada ay dowladda ka wado magaalada Dhuusamareeb. Xaaf ayaa ku dhawaaqay guddo cusub oo doorasho kaasoo ka kooban ilaa 11 xubnood ayna iskugu jiraan wariyaal, abwaano iyo dad aad looga dhex yaqaan galmudug. xaaladda dowlad goboleedka galmudugta Soomaaliyeed ayaa muddo dheer ku jirta isjiid siyaasadeed kaasoo aan weli dhinac u dhicin, balse dowladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan wada dadaaladii ugu dambeeyay dhismaha maamulkaasi. Africom ayaa war cusub ka soo saartay duqeyn ka dhacday gobolka Shabeellada Hoose. taliska Amisom ayaa faahfaahin dheeriya ka bixiyay duqeyn ay shalay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ka fuliyeen gobolka Shabeellada Hoose. war saxaafadeed ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in duqeynta oo ka dhacday duleedka degmada Afgooye lala beegsaday dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab. sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarkan oo ay ka qayb qaateen ciidanka Soomaaliya khasaare lagu gaarsiiyay Al-Shabaab. Africom ayaa xaqiijisay in ugu yaraan 3 ka tirsan kooxda Al-Shabaab lagu dilay duqeyntaasi iyadoo shaacisay inay jiraan waxyeelo kale oo soo gaaray dad rayid ah. dhinaca kale ma jiro wali wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab oo ku aadan sheegashada Mareykanka ah in duqeynta kaga dilay 3 xubnood oo saraakiil ah. waa duqeyntii ugu horeysay uu Mareykanku sanadkan cusub 2020 ka fuliyo gudaha Soomaaliya. muddooyinkii dambe ciidamada huwanta ah ayaa xoojiyay howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, waxaana dhowaan saraakiisha dowladdu shaaciyeen Shabeellada Hoose ay ku dileen ugu yaraan 30 ka tirsan Al-Shabaab. ugu dambeyn markaana Boosaaso faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dil koox hubeysan ay ka geysteen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. dilku ahaa mid qorsheysan ayaa wararku waxay sheegayaan in loo geystay sargaal ka tirsan ciidanka Puntland oo ku sugnaa bartamaha magaaladaasi. marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Ciise Ducaale, sidii caasimadda online oo warkan daabacday u xaqiijiyeen ila deegaanka ah oo lagu kalsoon yahay. wararka ayaa sheegay in ragga dilka geysto ku hubeysnaa bastoolada ay goobta iskaga baxsadeen falka kadib. sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa amniga ee dowlad goboleedka Puntland ayaa gaaray goobta iyadoo baaritaano kooban ay ka sameeyeen. ma jiro wali wax hadal oo ka soo baxay maamulka gobolka Bari iyo saraakiisha ammaanka oo la xiriira falkan. muddooyinkii la soo dhaafay amniga Boosaaso ayaa faraha ka baxayay
waxaana ka dhacay falilidi ku ah nabadgelyada kuwaasoo u badnaa dilal qorsheysan. saaxiibayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Samakaab. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino.